بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo mar kale jeediyay hadallo kala duwan oo la xiriira xaaladda dagaalka waddanka Iran isagoo ku andacoonaya in wadahadallo toos ah uu la leeyahay Iran isla markaasna wadahadalladaasi ay ku aadan yihiin sidii colaadan si buuxda loogu soo afjari lahaa wuxuu ku andacooday in Iiraaniyiintu ay doonayaan heshiis laakiin warwarkaasi ka duwan ayaa gordhowta ka soo baxay dhanka Iran laakiin Iiraaniyiintu waxay qareen inay jiraan wadamo isku dayaya dhexdhexaadin in la sameeyo ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo iyaguna war ka soo saaray arrintan ayaan idin soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa maxamed falaahinta aan ku bilowno Trump hadaladiisa waxyaalo badan waxaa jira iska hor imaanaya ku jira mar wuxuu leeyahay qof waxaan la xajoonaynaa hogaamiye sare ah oo la tixgeliyo wadanka Iran mar wuxuu leeyahay meel kuma ogin hogaamiyihii sare ee Iran mar wuxuu leeyahay waxa isla hogaamin doonaa wadanka waxaasi oo dhan iyo hadaladii markii hore uu sheegay ee ahaa barnaamijka ka horeeyay ku sheegnay warka degdega ee uu yiri 5 maalmood baan dib u dhigay duqeynta lagu qaadi lahaa kaabayaasha militariga aqalka ruushka xataa inuu maqlina looga taliyo waxa ka soo yeeraya warar isqalaafsan bay ku tilmaameen waxa soo yeeraya xagee loo raacaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hadaladiis inta wararka uu soo saarayo aan ka hadlin marka ugu horeysa waxa xusub mudan ayaantan dambe waxa aad looga hadlayay xaaladda caafimaadka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dad badan ayaa waxay leeyihiin madaxweynaha Mareykanka sidan kuma fiyooba hadaladiisa isla dhaafaya iyo marka la fiiriyo sida calaamadaha lagu arkayo oo dhan ayaa waxa la sheegayaa madaxweynaha Mareykanka waxa weeye caafimaadkiisa asaasiq ayaa ku jira leeyahay waxa dementia yiraahdo waxa runta ah iyo waxa xaqiiqada ah iyo waxa dhabta ah wax walba isku dhaxaysa Dr. David Gardner oo ku takhasusay daryeelka dadka waayeelka ah ayaa waxa uu leeyahay calaamadaha noo muuqda ee madaxweynaha Mareykanka wax allaale ee wuxuu sheego sida isugu dhacayaan iyo calaamadaha jirkiisa ka muuqda gacmihiisa dhagihiisa indhihiisa hoostiisa afka oo dhinac xoogaa u janjeera waxaas oo dhan wuxuu ku tilmaamay waa calaamado lagu yaqaano dadka waayeelka ah ee xaaladahan ama cudurkan uu soo bilaabayo waxayna qiyaasayaan cudurkani sababta loo baari laayahay oo waaxda caafimaadka ee madaxweynaha iyo dowladaba ay u dhugan laadahay ninkan bukaanka ah ee liita inuu wadanka arrimihiisa ku dhex jiro ayay su'aal ka keenayaan aanu soo noqono waraaqahan iyo bayaanadan iyo bartiisa wararka uu ku qorayo Trump waxa uu qoray in uu wada xaajood la leeyahay go'aan ka gaari doono dawladda xigta asaga iyo cidda uu sheegay inuu la hadlayo oo ciddaas ilaa hadda lama yaqaano waxaana muuqata in sida uu hadalka u dhigayo ay la tahayba in uu dagaalka ka socda bariga dhexe xaajadiisa asaga wuxuu arko inuu sheegayo in khabiirada arrimaha militariga dagaalka sida u socdo dadka xoogaalka u ah inuu cidna ka wareysanayn 48 saac la soo dhaafay dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinaca Iran u dhaxeeyay wuxuu maray xaalad aad u xoog badan waxa la duqeeyay goobihii ugu muhiimsanaa ee nuclearka ee Israa'iil sidoo kale saaka aroortii sida ilaha qaar ay sheegayaan waxa dhacay dagaal xoog leh oo ciidanka badda dhex maray Mareykanka iyo Iran cid ka hadlaysa waxyaabahaasi ma jirto madaxweynaha Mareykanka Iran sida ay u dhigayso dalabaad ayaa ka imaanaya xabad joojina ilaa iyo inta dagaalkan uu bilowday waa laga diiday Iran hore ayay u sheegtay inayna shaydaanka weyn la hadlaynin waxaa muuqata madaxweynaha Mareykanka ballankii uu qaaday iyo waqtigii uu qabtay in uu dib u dhigay 5 maalmood dib u dhigay 5 maalmood inta ayna dhamaanina
wax kale ayuu la imaan doonaa. tan kale oo ayadan la isweydiinaya ayaa waxay tahay aaway mas-uuliyiintii kale ee dowladda, congaresskii aaway mas-uuliyiintii kale ee dowladda. ninkan haddii xaalkiin uu sidan yahay, maxaa dowladda Maraykanka oo sheeganaysa inay tahay dowladda adduunka ugu awooda weyn, ninkan jiran maxaa loogu eeganayaa ayaa ilaha qaar leeyihin. waxay tahaba dagaalka waxaa la isku raacsan yahay oo khabiirada Maraykanka ay isku raacsan yihiin in dowladda Maraykanka ay ku fashilantay dagaalkan, oo waxaa dowladda Maraykanka ay qabatintay ama dhaqan ka dhigatay waddan miskiina oo aan difaac lahayn, oo aanan awood badan lahayn, inta diyaarada la kor tagto inay ku burburiso. hadda xaalka inta soo ka dayan yahay, Maraykanka 55 xarumood oo ku yaala gobolka Bariga Dhexe iyo Israa'iil ayaa waxaa duqeeyey dowladda Iiraan. burburka iyo khasaarada ay geysatay lacag ahaana wax maskaxda geli kara maaha. uma muuqato Iiraan in ay ka dhageysanayso wax Trumpna dadkan uu ergooyinka usoo dirayana warqadaha ay soo gudbiyaan waa la akhrisanayaa, wax isbedelayana ma jiraan. dagaalkanna uma muuqdo in waqti dhow uu istaagi doono. waxaa ku hartay Hormuz iyo gacan ku hayntiisa. Hormuz oo meel aad xasaasi u haddii la barbar dhigo biyo mareennada kale ee muhiimka oo ay ka mid tahay Canal Suez, oo ay ka mid tahay midka Turkiga ku yaala, oo ay ka mid tahay Panama Canal, oo ay ka mid tahay kanaal asna Maraykanka ku yaala. kulli maraakiibta marta lacag ayaa laga qaataa. Iiraan wax badan ayay dul qaadanaysaa ayaa khabiirada qaar leeyihiin, oo si bilaash ayaa muddo badan lagu marayay. tii ayaa idab darro loogu daray. hadda wixii ka dambeeya xaalka sida hore ma ahaanayo. Professor Maxamed Marandi ayaa waxa uu leeyahay gobolka Bariga Dhexe ma sii ahaan doono siduu ahaan jiray waagii hore. wadamada martigelinaya ciidamada Maraykanka waxaa waajib in ay ciidamadaasi ay ka eriyaan wadankooda. haddii kale Iiraan ma ogolaanayso Maraykanka inuu mar dambe hareereeyo wadamo darisana mataqaanaa u deganaado lagana soo weeraro halkaasi. waxaana muuqata sida ay khabiirada hadalka u dhigayaan, kuwa Iiraan, kuwa Maraykanka iyo kuwa caalamka, xaajada dagaalkani uu Maraykanku ku degdegay in ay hadda weji cusub yeelatay. Maraykanka mas-uuliyiintiisa oo madaxweynaha ugu weeyahayna hadal la isku halayn karo inuuna ka imaanayn. waxayna u badan tahay duqeynta kaabayaasha ee hanjabaada weyn ee hadda labada dhinac isu dusanayaan in lagu soo biiriyey in nidaamka isgaarsiinta ee badda hoostiisa mara inay Iiraan goynayso kuna adkaysanayso haddii la duqeeyo agabkeeda shidaalka iyo korontada inay hoog iyo bac ayadana geysanayso. waxay tahaba madaxweynaha Maraykanka hadalkiisa wax la isku halayn karo maaha ayaa khabiiro badan hadalkooda kusoo gabagabiyay. waa gartay Maxamed, warar degdega ayaa hadda soo dhacaya arrimahan la xiriira. dabcan falaqaynta waana soo wada doonaa. marka hore warbaahinta Maraykanka qaar ka mid ayaa waxay tabeysay saacaddii ugu dambeysay ama saacad ka hor war ay ku sheegayso inay jiraan wada hadallo toosa oo la filayo inay ka dhacaan waddanka Pakistan. waliba waxaa yeelan doona gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Barik Khalibaf iyo madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka JD Vance. laakiin waxaa soo dhacay war gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan ayaa hadda soo hadlay. haddaba aynu eegno warka ay soo tuurtay wakaaladda wararka IRIB ee laga leeyahay Iiraan. gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Barik Khalibaf ayaa beeniyey in wax wada hadal oo dhex maray Maraykanka Iiraan uusan jirin, isagoo adkeeyey hadalkii wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay. wuxuu yiri wax wada xaajoodaan lama in la yeelan Maraykanka waana warar been abuur oo loo adeegsanayo in lagu farageliyo ama in lagu dejiyo suuqyada maaliyadda gaar ahaan kuwa shidaalka oo qiimahooda uu kacay. wuxuuna sheegay tan inay tahay mid Maraykanku doonay inuu kaga baxsado xaaladda isaga iyo Israa'iil. Iiraan waxay dalbanaysaa ciqaab dhammaystiran oo ay la socdaan qoomamo in lagu fuliyo kuwii gardarrada sameeyey, ayuu gudoomiyuhu ku yiri qoraalka uu soo dhigay baraha bulshada. waxaana markaasi uu sheegay in ay garab taagan yihiin hogaamiyahooda sare shacabka ilaa hadafka la gaarayo.
aan ku sii raacay maxamed war kale isna degdega hadda soo dhacay ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ayaa iyaguna war soo saaray waxay sheegayaan waa sida bayaanka ay ku yiraahdeen dhaqanka khiyaanada leh ee madaxweyne Trump inuusan ka dhigi doonin inay ka leexdaan dagaalka IRGC waxay sheegeen inay fuliyeen weerarkii 77 iyagoo adeegsanaya gantaalo adag culus oo si sax ah u beegsanaya goobaha la beegsaday waxayna adeegsadeen qaybar shaakin gantaalka la yiraahdo iyo diyaaradda ismidaamiya waxay intaasi ku dareen wasiyadalka u dhigeen in dhaqanka iskhilaafsan ee madaxweynaha Mareykanka ee khiyaanada leh uusan ka dhigi doonin in ay lumiyaan diiradda ay ugu jahaysan yihiin jiida dagaalka hal uu fasiri kara maxamed hadaladan Soomaalidu waxay tiraahdaa fallaari gilgilasho kaaga ma harto Mareykanka iyo warbaahintiisa wararka ka soo baxaya Iiraan waa diiday wax ka jir ma jiraan ay jireen dadkooda ayay been u sheegayeen ayagana waa isla goynayaan inta marka la yiraahdo gantaalkan hadda aad xustay Khaybar la yiraahdo Khaybar waxa weeye dagaalkii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam oo ku qaaday qabiilkii Madiina la deganaa ee khiyaanada ku sameeyay waxaana muuqata Iiraan inayna Mareykanka wax ka maqlaynin hadafkeedana ku dhagan tahay horeyna u sheegtay dagaal hadda bilowdid baa yiri Mareykanka dagaalka adiga ma dhameyn doontid Mareykankana waxyaabo la qarinayo waxa jira aanan soo bixi kareynin waxa weeye dagaalka Mareykanka qiyaastii uu waday iyo Israa'iil qiyaastii ay waday iyo waxa dhacay aad ay u kala fogeen taariikhda lama sheegin sida Mareykanku u jabay wax sidaas oo kala waxa la barbar dhigayaa weerarkii Pearl Harbor ay Japan ku qaadeen dekad oo Mareykanku lahaa oo maraakiibtiisa ay yaaleen military waxa sidoo kale Scott Ritter uu leeyahay dowladda Mareykanka dhibkan ay ayada isu geysatay in uu si xumaada maahan ma soo hagaagi doono waxa sidoo kale ka hadlaya arrimahan Douglas McGregor oo la yaqaano in uu la taliyaha wasaaradda gaashaandhigga ah xilligii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu leeyahay madaxweynahan iyo ciddii la talinaysaba haadaan weyn ayay ka dhaceen wararkan hadda soo baxay ee Mareykanka la isku mahalayn karo markii hore ayay ahayd inay ka fiirsadaan tan kale oo ayadana culeyskeeda leh waxay tahay mar haddii aad dhaqan ka dhigato in aad been joogta sheegto waa sheekadii Soomaalidu ay sheegi jirtay Umar Beenaale sheeka xariirooyinka ayuu kamid yahay ariga raac la yiraahdaa markaas yiraahdaa waa dhurwaayay markii loo yimaado dhurwaay meesha ma joogo maalintii dhabta ahayd dhurwaaga yimid oo uu qeyliyay wax u yimaado waayay dhurwaagi ayaa ariga ka laayay Mareykanka marka dagaalkan cid ka fujinaysa ma jirto warar kale oo waxaa jira dhowrka maalmood ee soo bixi doona waxaa laga baqayaa sida khabiirada qaar ay hadalku dhigayaan oo uu kamid yahay Sachs uu kamid yahay Jeffrey Sachs uu kamid yahay Iran ayaa laga yaabaa in lagu duqeeyo hub nuclear ilaa iyo hal gantaal iyo laba gantaal Iran waa dhul baaxad weyn ayuu leeyahay oo laguma baqsan karo waxa laga yaabaa Israa'iil inay ku duqeyso ilaa iyo 16 goor arintuna waxa laga yaabaa markaas inay faraha ka baxdo waa gartay waaya warar waxaa jira sheegaya waraaqaha loo gudbiyey Iran oo wadamada dhinacayaasha u gudbinayaan sida wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegayso inay ka mid tahay in Mareykanku toos ay la kulmaan gudoomiyaha baarlamaanka Iran Maxamed Qalibaf suurtagal ma tahay Mareykanku maxamed inay ka raadinayaan Iiraaniinta dhexdooda in qol ay ka soo dhex baxdo oo ay isku dayaan in ay talada la wareegaan Venezuela oo kale waxa la yiraahdaa waxyaalaha xukunka looga toray Maduro waxa kamid ah gabadha madaxweyne ku xigeenka ah Delcy Rodriguez iyo walaalkeed oo ah gudoomiyaha aqalka sare iyo wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha gudaha inay ka soo horjeesteen oo Mareykanka ay taageereen waxay doonaan ba ku taageereen ama lacag ama xukun ay sii hayaan ma dhici karta Iiraaniyiinta masiixiin dad u samaysan in intii dhex galo laga faa'iideysto oo markaas xoradaas ayaa xukunka qabsanaysa su-aashaas aad iyo aad ay u fiican tahay dhowr goor ayaan daawadayaasha HBN u sheegnay dagaalka qarniga 21aad waa ka duwan yahay dagaalka qarnigii 20aad Mareykanka waa laga yaabaa inuu ugu murqa kuusnaa ugu agab fiicnaa
maraakiib waaweyn oo diyaaradaha qaada, diyaarado khatar ah oo aanan raadarada arki karayn, in uu ismahadiyey. laakiin iiraan waxa ay muujisay sida ay hadalka u dhigi jirtay dulqaad iyo sabar istiraatiiji ah. maraykanka dagaalkan uu ku jiro cid ka fujin karta ama ka badbaadin karta ma jirto. inuu iiraan ka adkaado maraykanka ama inay iiraan maraykanka ka adkaato wax ka sokeeya ma jirto. maraykanka iiraan wuxuu maraykanka u haysataa inuu yahay shaydaan. midda kale dowladda iiraan u dhisan waa ka duwantaa dowladaha caalamka oo kale. dowlad kastoo caalamka ah inta iiraan lagu sameeyey haddii lagu sameeyo waa dumaysaa wax ay rabtaa ahaato. laakiin iiraan dowladdeeda saas maaha. dowladda iiraan waxay u dhisan tahay sida khabiirada hadalku dhigeen oo uu ka mid yahay maxamed muraadi oo professorka ah jaamacadda tehraan, isla markaasna sheegay in naftiisa xataa ay khatar ku jirto. waxay u dhisan tahay sidii xuubka caarada oo kale. xuubka caarada waxa weeye asagoo wada jira oo wada shaqaynaya ayuu kala qoqoban yahay. dhammaan ciidamada ilaalada kacaanka ah iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee waddanka iiraan, haddii hoggaan la dilo iyo haddii qof la dilo iyo haddii hanqaraarac lug uma dhutiyo weye dowlad dhacaysa maaha. waxaa kaloo ayadana aan meesha ka maqnayn oo dadka khabiirada ah, dadka shiicada iyo caqiidadooda yaqaana leeyihiin, iiraan jaahilnimo meeshay ka gaartay waxa ay dishay baa leeyahay weliyo faqiih oo ah nin darajo sare oo diimeed xagga shiicada ka leh. ma aha oo keliya in iiraan ay caraysan tahay oo ay midowday, ee waxaa midowday adduunka shiicada oo dhan. oo waxaad moodaa hadda iiraan cidda ula dagaalamay kara iiraan keliya inaan ahayn ay tahay dad baaxadooda lagu sheegay 300 ilaa iyo 280 milyan oo shiico ah oo adduunka oo dhan ku baahsan. waxaa kaloo ayadan meesha ka maqnayn oonan iiraan aynan weli u baahan oo ay rabtaa inay howlgeliso waxaa afka ingiriiska lagu yidhaahdo sleeping cells ama unugyada hurda, oo ah dad iiraaniyiina oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ah oo dibadda lagu koriyey oo wadamada iyo dhaqamada ay ku dhex jiraan afkooda iyo dhaqankooda yaqaana oo markii loo baahdo hurdada laga kicinayo. waxaana muuqata maraykanka waddan walba xukuumaddiisa wuu ridi karaa, laakiin iiraantiisa kuwii ridi jiray ma aha. waxaana qoorta ugu jirtaa mashaakil weyn oona xallin karaynin. khabiiradii iyo istiraatiijistayaashii iyo xirfadleydii militariga iyo dadkii xogogaalka ah warkoodii u diiday ayaa hadda haysata. maraykankana xaaladan siduu uga baxo way adag tahay ayay khabiiradu leeyihin. waa hagaag. waxaa kaloo soo dhacaya warar kala duwan oo la xiriira ra-iisul wasaaraha Britain ayaa waxa uu leeyahay dagaalkan ma aha dagaalkeenna ah. isla markaasna wuxuu leeyahay waxaan wadamada gobolka aynu xiriirka leenahay geynay nidaamyo difaac hawada ah. waxaa kaloo uu sheegaya inay ka warhayaan sida dalka u dhigay wadahadallo u socda Iiraan iyo Maraykanka. Kaya Kallas gabadha u qaabilsan arrimaha dibadda midowga Yurub ayana waxay leedahay waxaan soo dhaweynaynaa warka ka soo yeeray Trump ee la xiriira in dib loo dhigay in la weeraro xarumaha inaan la weerarin xarumaha tamarta ee waddanka Iiraan. waya maxamed si kooban Israa'iil haddii Trump ay noqoto inuu la hadlo Maraykanka ilaa hadda wayna maqlaynaa inay leeyihiin waynu la yaabnay. Netanyahu la'aantiis ma Trump la hadli karaa Iiraan heshiis la gaari karaa waxase xitaa hadday noqoto waxa ay rabaan ha u yeereen ma ku dhiiran karaa sidaas inuu sameeyo inuu toos ula hadlo. waa maangad weeye, wax maanka galaya maaha, wax dhacayana maaha. kulamadii Iiraan ay la yeelinaysay waddanka Maraykanka dagaalkan intuuna bilaaban ka hor iyo dagaalkii hore ee June dhacay dagaalka 12 maalmood la yiraahdo, Iiraan kulanka ay la yeelinaysay Maraykanku wuxuu ahaa kulan dadban. kulan toosa Iiraan ma ogola in ay la yeelato waddanka Maraykanka. Maraykanka waxay u haysataa inuu shaydaanka weyn yahay. qodobada ay soo gudbisana qodobo Maraykanka u cuntami kara maaha. waxaa ka mid ah inuu magdhow ka bixiyo waxa laale iyo wixii dhibaato ku gaaray Iiraan
cunaqabatayntii. waxaa kale oo la dalbaya oo aanan meesha ka maqnayn haddii agabkeenna aa burburiso ayadoon la dayac tirin weligeed la furi maayo marinka hormuus. waxaa kaloo ayadana ila kale ay sheegayaan iiraan heerka ay gaarsiisan tahay hadda kabacdi lacag ayay ka qaadaysaa marinka hormuus cidda maraysa. saaxiibada iyo wadamada ana cadowga ahayna waa ogolaanaysaa, kuwa kalena waxa weeye waa u diidaysaa oo maraakiibtooda waa gubaysaa. tan kale wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka warkan ay sheegayaan dowladda ay ka hadlayaan haddii ay leedahay cid aan la hadlayno iyo cid aan la hadalnay ma jirto. haddii ay leedahay waxa weeye iskaashigan la isu kaashanayo oo beenta la wada riixayo oo wadamo aan cidna dirsan. Iiraan cid ay dirsata lama arko. Mareykanka wadamadan uu dirsanayo uu leeyahay xaaladda hadda la dejiyo. waxaad moodaa ereyadii hanjabaadda ahayd ee Iiraan ay hore ugu sheegi jirtay Mareykanka, afka hanjabaadda bedel hadda wuu bedelay. afkii hanjabaadda ah waa shaqeyn waaye. wadamadan marka fariimaha loo dhiibayo, wadamadan fariimaha loo dhiibayo laftirkooda waxa weeye Iiraan ma aaminayso, sababtoo ah cidda fariinta soo dhiibaysa ayayna ku kalsooneyn. arrinta Israa'iil raalli ahaanshaheeda, arrinta Israa'iil balaayay qorta gashatay. ma joojinayso Iiraan ilaa iyo inta Israa'iil ay awood leedahay gobolka bariga dhexe ku leedahay. waad ogeyd magaalada Tel Aviv bayaan ayay soo saareen dhowr maalmood ka hor oo ay yiraahdeen dadka ha isaga qaxo. waad ogtahay dad fara badan inay ka qaxayaan, qaar ay aadayaan Qubrus, qaar ay Masar aadayaan, qaar ay Jordan aadayaan. magaaladana duqeynta ka dhacda waxa weeye si weyn loogama hadlo. qofkii ka hadla ama sawir ka qaada 5 sano ayaa lagu xukumaya. haddaan tusaale u soo qaadano xagga duqeynta, waxaa muuqata goobtii la duqeeyey ahayd goobtii nuclearka lagu tayigelin jiray wadanka Israa'iil. dadkii marqaatiyaasha waxa ay ka hadleen ayaa waxay ka hadleen wax la maqlay oo la arkay maaha. Iiraan Israa'iil dhibka ay u geysatay Gaza in ka yar 3 toddobaad ayaa khasaaraha waxaa lagu qiyaasayaa in uu ka badan yahay 500 bilyan oo dollar. dagaalkan haddii uu sii socdana waxay u eg tahay in Israa'iil jiritaankeeda uu khatar geliyo, sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan. aniga ma khabiirada qaar sida hadal ku dhigayaan. Professor Meshamer waxa uu leeyahay Israa'iil waxa ay noqotay dagaal ooge lugihiisa ku doontay dhibaato. Professor Sachs waxa uu leeyahay wadamada bariga dhexe cidda dagaal oogaha ah oo xuquuqaha aan ilaalinaynin iyo dowladnimada aan ilaalinaynin waa Israa'iil. Israa'iil marka xaaladda ay ku jirto cid u naxariisanaysa iyo cid u garaabaysa lama arko. dhibaato xoog lana waa ka jirtaa. duqeynta Iiraanna dadka reer galbeedka haddii ay ka hadlaan waxay ka hadlayaan waxayna aqoon u lahayn. gantooladan guuxooda ka dheereeya waxaa laga hadlayaa hypersonic ayaa laga hadlayaa. guuxa waxay ka dheereeyaan 15 goor iyo wixii ka sarreeya. waxa weeye gantaalo ay samaysan yaqaanaan maaha. waxyeeladooda ayay waxay ku arkeen ruushka markuu ku isticmaalay Ukraine. hadda Iiraan si joogta ayay u isticmaashaa gantaaladaas. wax ay ka hadli karaan khabiirada reer galbeedka maaha, sababtoo ah aqoon ay leeyihiin ama ay gaareenba maaha. tan kale oo ayadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye waxaa soo baxaya tasriibaad ama hadallo qarsoodi oo la xiriira gantaalada Iiraan. waxaa lagu qiyaasi jiray 3,000 ayay reer galbeedku sheegi jireen. diyaaradaha droniska ayaa hadda la sheegay tiradooda maskaxda ma geli karto. 80,000 oo diyaaradood oo dronisa oo noocyo kala duwan ah ayaa Iiraan ay soo saartaa baa leeyahay, oo midda ugu badan ay $1,000 ku baxday. waxaana leeyahay gantaala diyaaradahaasi haddii raxan iyo kun loo soo diro ciidan kastay jebin karaan. waana ogtahay diyaaradaha qarniga 21 waxay ka noqdeen isbedelka ku keenay dagaalkii dhex maray Azerbaijan iyo Armenia, dagaalkii dhex maray Libya dhexdeeda ka jiray oo mucaaradka ay isku haysteen, dagaalkii Ethiopia dhexdiisa ka dhacay Tigreega iyo maxaan ku idhaahdaa dowladda Ethiopia